أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين أشرق النور المبين وأتى الهادي. صدح دقيقة كير 10 كلمات تدمر نفسية الأبناء. طبعا أريموت عرورتا نفسدو الدشا كالسونيدو دي الدشا هميغو دي الدشا مروركو دي الدلاعيسا. طبعا أريموت يا تري كو الشتمو عرورتي إن لعايو الشتمو إن عرورتي لغو صفيو حيوان دمير يهو أيهو دبياو أكتهاي حيوان باتهاي حولا فيري ناقوين وحيوان دالي بسا ilmaha in xayawaan haddii lagu sifeeyo waxaa yidhaahdaa cunigaasi niyad ahaana u dhimanaya nafsad ahaana u dhimanaya. qodobkooda xana ashadmu ilmaha in la caayo cuniga mustaqbalkiisa fog iyo kan dhowba way dilaysaa. cuniga hadda la caayo xayawaan hadda lagu sifeeyo xayawaan kelib dameer cuniga in la yidhaahdo waa halis wey. tobanka arrimood aan sheegay waa halis. arrinta labaad al-ihaana cunigii in la ihaaneeyo cunigii in la ihaaneeyo oo wili waxa uu yahay in laga naaqusiyo. ala sabiil mithaal cunigaaga inaad ku sifayso sifaat xunxun inaad tiraahdo khabiix waxaan fiiri beenaalaha ah waxaan fiiri oo foosha xun waxaan fiiri cajilan oo feeraha weyn leh gabadhan fiiri xawadka inaad maana aad ku cayso taasi waxay keenaysaa dhahnay cunigan nafsad ahaan u dhimanaya. cunigaada wuxuu dhimanayaa nafsad ahaan buu u dhimanayaa. waxaa la yidhaahdaa ihaanada ilmaha oo la ihaaneeyo ilmaha oo waxyaabaha qaar lagu tilmaamo beenaalaad tahay waad xun tahay waad cayilan tahay jiis yahow waxyaabahaas waxaa la yidhaahdaa cuniga qalbigiisa waxay ugu dhacaysaa sida dhimbil naar oo kale qalbigiisa utaabanaysaa. soomaali u badan nahay cunigeena hadduu xanuunsan yahay hadduu caafimaad qaba caynaa hadduu cayilan yahay waxaa bilaayo feeraha weyn hadduu caatada qaba feer caatada badan leh. marka ilmaha in la ihaanaysan loo baahan yahay oo hamigoodii la dhiso. midda saddexaad almuqaarana cunigaaga in aad la samayso barbar dhig itiraahdo in adeerkaaga kaa fiican walaalkaaga fiiri goda kula dhalta fiirsa u taalo adig saan u taalaa. arrintaa waxay keenaysaa cunigii in uu nafsad ahaan uu u dhinto bal waxay keenaysaa qofka aad la miithaalisay in uu naco walaashiisa aad inuu naco ama walaalkiisa in adeerkiisa dariskiisa la miithaalisay qofka inuu naco ayay keenaysaa. midda afaraad ee cuniga disha qalbigiisa iyo allahu mustacaan nafsadiisa disha iyo mustaqbalkiisa dhaawacda waxaa kamid ah xubbun mashruud. allah jaceyl mashruud ah wax ku xiran. waxaa la yidhaahdaa cuniga in lagu shardo waxyaabaa qaar inaad tiraahdo ana ma axabak laanaka facalta kada hooyo ani ma ku jecli waxaana samaysan heesa dhegaysa fi ala sabiil mithaal ama geema dheeshaa hooyo kuma jecli. inaad tiraahdo axabak low akalt waan ku jeclaanaya hooyo haddaa cuntadaan cunto waan ku jeclaanaya hooyo hadda shaahiga cabto xubu mashruub ayadaa. taasi waxay keenaysaa cuniga wuxuu ogaanayaa inta yar uu cuntada cunaay keliya in la jecel yahay hadduu cuntada iska dhigo uu geemkii ku laabto in lana cayo ogaanaya. taas waxay keenaysaa nafsad ahaan buu u dhimanaya cunigii. ilmaha qaar waxay ku leeyihiin ani hooyaday hadda waxaan samay ima jeclaanayso hooyaday hadda waxaan samay ima jeclaan. cunigaaga hadduu qalad sameeyo jeclaaw hadduu xumaan sameeyo jeclaaw hadduu wanaag sameeyo jeclaaw laakiin waani wax u sheeg. jeceelka iskuma xirna iyo waanada jeceelka iskuma xirna in cunug in la garaaco iskuma xirna. taasi waa inaad fahamtaan. laakiin jeceelka shardiga waxaan ii qaba ku jeclaanaya taasi cuniga mustaqbalkiisa dhaawacaysaa. midda shanaad macluumaat alkhaadi'a cunugii in la siiyo macluumaad khalad ah. mithaal cunug inaad ku tiraado wiilkaaga yar waa ku qaadi u ooyey ama ha yaraa ama haweyn waxaa dhadaa war ragga ma ooyaan aamus fiir waxaan ma dhow cilmiya wuxuu ooynayaa fiiri. taasi waxay keenaysaa cuniga mustaqbalkiisa dhaawacaysaa. taasi waxay kusinaysaa cuniga yani macluumaad khalada siinaysaa khalad. abubakr sidiq wuu ooyi jiray nabi maxamed alayhi salatu salaam wuu ooyi jiray asxaabtu way ooyi jireen dadka ilaahay ka cabsooda way ooyaan.
ilaahay dadka cabsooda way ooyaan marka cunugaaga dhado maxaa ooyaysaa gabar maa tahay gabdhaha ooyaan dumarkaa ooy qaad inaad cunugaaga siiso taas waxay keenaysaa cunugaaga mustaqbalkiisa inay dhaawacday keenaysaa waxyaabaha kale waxaa kamid ah uskut inaad cunug ku tiraahdo markaad yareed baariya ahayd hadda markaa weynaatay wallahi waa xumaatay markaa yaraad baariya ay ahayd had markaa weynaatay xoogaa xoog isu aragteed wallahi billahi tallaahi waa isbedeshay no anaa kibirka kaa badiyay qooqan kaa badiyay caanahan kuu dalay iyo caana booraha cunuga inaan qalas maa hooy shalay waa ii fiicneed maantana waa ii fiican tahay laakiin saan waa laga fiicanya taasaa loo baahaya qodobka shanaad ee qodobka lixaad ee cunuga disha mustaqbalkiisa dhaawac waxaa kamid ah al-ikhtibaar cunugaaga in aad hadal xun aad ku tiraahdo misaal waxaa yidhahdaa cunugaaga inaad qalbiga ka disho inaad ku tiraahdo waxba u sheegtay inaad ku tiraahdo waxaan fiir jaahilka waxaan fahmayo jaahil bata weli waxaan fahmaysid taas waxay keenaysaa cunuga mustaqbal dhaawacaysaa misaal cunugaaga koodkaaga waxaa dhahday hooya kaale koodka ii geli bangiga wuu qalday fiiri wax ma fahmayo jaahilkaan feeraha weyn leh mustaqbalkiisa dhaawacaysaa inaad ku tiraahdo uskudigaa shaydaan yaho aamus inaad ku tiraahdo adi oo waxaan faa'iida ma lahan fiir faa'iida weligaa faa'iida lagaama helaayo weligaa faa'iida kaama maamuunka qaar waxay kuleeyihin faa'iida weligaa kaama hela adig faa'iida malid adi faa'iida malidba cunugii muxuu dareemayaa inuusan weligiis faa'iida lahaaninba cunuga wuxuu dareemayaa inuusan weligiis faa'iida cunuga muxuu isku dhaya marka mustaqbalkiisa adduun iyo aakhira waa baabi'inaysaa qodobka toddobaad ee cunuga mustaqbalkiisa dhaawacda nafsad ahaana uji waxaa kamid ah altahdiid alkhaadir ilmaha in aad waabsi qaad waafato waabsi ilmaha in waabsi wala yaqaamina handadaad tiraahdo qoortan kaa goynayaa wallahi dhiigaaga camadan qofta dhiigaaga waa cawaya aan ku tira wallahi waan ku qalaya cunuga waxyaabaa qaad inaa uu sheekaysa waa halis mustaqbalkiisa dhaawacaysa qoortan kaa goynaya dhiigaaga cawaya waa ku qalaya waxyaabahaasi waa cunuga waxyaaba mustaqbalkiisa dhaawacday kamid tahay qodobka sideedaad ee cunuga mustaqbalkiisa in nafsad ahaan u disha waxaa kamid ah almancu kayr almuqnic cunuga in waxa uu jecel yahay loo diido asagoo laga qancin misaal anaga ilmahayna waxaan deganahay 2 qol iyo yariis iyo fadhi yara deganahay iyo xoogaa yara barandeera banaan kulena maxaa leeyahay cunugii wuxuu raha wuxuu kuleeyahay hooy banaankaasaan ku dheelayaa maxaa maya inta fadhi hooy maxaa igu diide mara amarkay qaada inta fadhi qalad waay cunuga markaad wax u diido waa inaad ka qancisaa banaanka oo bixaysid maxaa dhacay hooy maxaa igu diideen qabow waa jira qabow ku galaayo banaanka oo bixaysid maxaa jiro qur-aanka ma ka bixin banaanka maayis maxaa dhacay hoomooga ku cunuga inaad qanciso taas waxay kamid tahay waxyaabaha cunuga muusan ahaan disha haddaad ka wuxuu markaas wuxuu ku cunuga wuxuu dareemayaa inuu dictator laga yahay baxay misaal hooyo telefonaan rabaa telefon maxaa ka falaysaa wuxuu telefon rabaa maku gadaayo hooy maxaa igu diiday maku gadaayan ku dha maku gadaayo waa iweydinaya ma ahan telefonku ma rabo qur-aanka markaad dhamaysid iskuolka markaad heerka gaartid markaad soo weynaatan ku gadaya wax cunugii wuu qancaya taas waxay kamid tahay anay in cunuga waxyaabaha mustaqbalkiisa dila ayay kamid tahay qodobka ugu dambeeya ee qodobka sagaal cafwan adducaa caleyh cunugii in la habaaro cunugii in la habaaro la yiraahdo ilaahu ku qaad allah yaakudak casaak tamuut ficna inaad dhimataa ficna laheed marka adi ku dhalaayay hambiya inaan fooshaa ficnaanada raxmar iminkaan ku dhalaayay inaa hambiya fooshaa adi inta yani cunug ku tiraahdo ya cunug inaa habaarto taasna waxay ka cunuga mustaqbalkiisa dhow iyo kan fog way dilaysaa qodobka tobanaad ee cunuga mustaqbalka dil waxaa kamid ah alfadiixa cunuga inaad ceebayso cunugaaga inaad ceebayso khaasatan dadka hortooda inaad cunugaaga asraartiisa inaad ku sheegto facala sabiili mithaal cunugaaga yar wuu isku kaadiyaa habeenkii asxaabtiisa guriga ugu imaatay waa la sheekaysanayaan ama caruurta dariska u imaaday waa meesha game iyo waxa la ilaha kaale bilaahi xuma isku kaadiya dadkaas warkaa markaaga xalay aad ku kalaasi soo qabo warkaaga bacda xalay ku kalaasi soo qaad cunuga fadiixa asxaabtiis aad ku hor ceebayso taasi waxay ka daran tahay cunuga in la dilo ayuu ka jecel yahay carruurta in ay dhintaan ay ka jecel yihiin laakiin oo soomaaliya iyo soomaaliyeed ma fahmaysa arrintaas
in tobankaa qodob aan soo sheegnay ilmaha in laga ilaaliyo waa very important, in laazim yani in laga ilaaliyo mustaqbalku ay dhaawacaysaan. waxaa la yidhaahdaa cunuga marka uu soo qaangaarayo 13 ilaa 12 4 iyo marka cunug ku jiro, cunug waxaa la yidhahdaa wuxuu cunuga kalimaadka uu maqlo waxay la egyihiin 10,000 kalima, 10,000 oo kalima ayuu cunugii maqlaa marka cunug 8 sano jiro. 8 sano markuu jiro cunuga 10,000 oo kalimad ayuu maqlaa. 10,000 oo kalimad hadday inta badan ay yihiin caay, dameer yahow, eeyahow, caay iyo habaar iyo duco iyo qaayli hadday habaar hadday yihiin soo dhibaato maaha. waxaa la yidhahdaa cunuga marka uu 15 gaaro waxa uu maqla yidhahdaa akthara min 15,000 500 oo kun oo kalimuu maqlaa. hadduu 500 oo kalima uu maqlay ay caay iyo habaar ay u badan yihiin, cunuga mustaqbalkiisii maxaa laga filanaya? dhibaato laga filanaya. marka 5 qodob aan horey usoo sheegay ee cunuma doonaysa inay caruurtaada ku jeclaadaan waa muhiim waaye insha allahu tacaala. 10kan kalimood ilmaha nasadooda disha iyo mustaqbalkooda ayadana waa muhiim in aan dadaalno insha allahu tacaala. ayaan rajaynayaa biidni illah albaari inay caruurteedana na jeclaadaan, anigana aan jeclaano. ayaan rajaynayaa biidni illah albaari haddaan mawduucana aan dhaqan gelino aan